midaynta canshuuraha waxaad ogtihiin ma suuro gelin 4 sano la soo dhaafay in la mideeyo waa lagama maarmaan in la helo dhaqaale midaysan. bismillaahi raxmaani raxiim waxaan wanaagsan daawadayaal iyo dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar labaad iyo Beledweyne City. madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabelle ayaa sheegay in ay muhiim tahay in la isku daro dhaqaalaha ka soo xaroonaya maamul goboleedka Hirshabelle si guud, taas oo ay tahay maamul wanaagga koobaad in uu ka iman karo. madaxweynaha Hirshabelle ayaa looga baahan yahay in uu ka jawaabo su'aalaha soo socda. ma ka jawaabi karaa wey su'aashu waa taa. 3 bishii 8 2022 dagaal qaraar oo ka dhacay deegaanka Bukure oo hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ayaa waxa lagu gubay ama lagu burburiyay ceelkii degmadaas tuuladaas ay lahayd iyo sidoo kale deegaankii dadka shacabka ay deganaayeen guryihii ay ku lahaayeen ayaa kooxda qawaariista markii dagaal iska hor imaado foolka foolo ciidamada dadka deegaanka iyo sidoo kale maamulka gobolka Hiiraan oo iskaashanaya ay cagta mariyeen ayaa ay ceelkii ka gubeen isla markaana dadkii aaga dukaamankii iyo guryihii ay ku lahaayeen ay gabi ahaanba burburiyeen dibna qabadsiiyeen. cali Guudlaaw halka waxaa su'aal ka imaanaysa lacag $2 milyan iyo $500 oo ka timid dowladda Imaaraadka Carabta ay ugu deeqday maamulkaasi isla markaana specifically loogu talagalay dadka dhibaatadu ay ka soo gaartay dagaaladaas iyo ceelasha biyaha ee la gubay xilligaas oo abaar kulul ay jirtay. xagow mariya cali Guudlaaw taasi waa su'aal una ka jawaabi karin cali Guudlaaw meeshu mariyane asaa yaqaan laakiin shacabka Soomaaliyeed uma cadeey kariyo. waa qodobka labaad lacag $1 milyan oo ay ku deeqday ay soo gaartay lacagtaasi 20kii isla bishii Agoosto ee 2022 ama bishii 8 20keedii 2022 lacag $1 milyan oo ka timid oo isla markaana soo gashay akoonka maamulka Hirshabelle lacagtaas oo ka timid NGO laga leeyahay dalka Mareykanka. cali Guudlaaw waxa gogay taas waxa loogu talagalay in lagu caawiyo lagu gargaaro dadka dhibaatadu ay ka soo gaartay dagaalada xilligaas dagaaladu si xawliya waxay uga socdeen gobolka Hiiraan isla markaana gobol kale oo Soomaaliyeed waa la isqaban qaabinayay gobolada kale taa in la fahmo loo baahan yahay. sidoo kale isla bishaas bishii 9 ilaa bishii 10 maamul goboleedyada waxaa loogu talagalay dowladdu u qorshaysay dowladda waxaa soo gaaray lacag $100 milyan oo loogu talagalay dhibaatooyinka abaaraha iyo sidoo kale aafooyinkii ka dhashay dagaalada. 100 milyan dowlad goboleedyada waxaa loogu qaybiyay 4 milyan in la siiyo Somaliland 4 milyan, Puntland 4 milyan, Galmudug 4 milyan, nimanka la yiraahdo ishaga Hirshabelle 4 milyan, labada maamulo kale koonfur galbeed iyo sidoo kale Axmed Madoobe maamulkiisa oo Jubbaland waxa la siiyay 4 milyan. maamulka Puntland ayaa dood ka keenay isla markaana isu arkayay in uu ka mug weyn yahay maamulada kale ee dalka ka jira kaas oo markuu qaadacay arrinkaas maamul goboleedyada including Hirshabelle $500,000 ay dib isaga soo celiyeen kadib markii madaxda maamul goboleedyadaas iswareysteen laguna qanciyay Puntland in 500 loo soo celiyo ayada lana siiyo. Puntland way qaadatay lacagtaas waxay Puntland markay laga jaray marka waxay noqonaysaa $500,000 meesha waxa weyne 3 milyan. okay cali Guudlaaw waxa soo gaartay marka $6 milyan iyo $500,000 hal ceel kama qodin hal cariish kama dhisin islaan masaakiin oo ilmihii laga gubay xitaa ma caawin ceel kuma qodin isbitaal kuma dhisin. annagoo magaalooyinka waaweyn ee gobolka Hiiraan Buulaburti Beledweyne Jalalaqsi Maxaas ayadoo dhulka lala simay qaraxyo oo kooxda qawaariista ay dhulka la simeen $1 kuma sheega kariyo. hadda wuxuu leeyahay canshuur hal la isku darsado oo maamul goboleedan nahay canshuurtii aan midaynoon hal akoon ku shubano yeelano cali Guudlaaw su'aalahaas horyaal $7 milyan iyo $500,000
kuma jirto lacagta 150 ah ee bil walba dowladda dhexe ay siiso maamulka Hirshabelle kuma jirto taas lacagta 7 milyan iyo 500 kun oo dollar ah cali guudlaawe meeshuu geeyay dowladda dhexe waxa looga fadhiyaa inay kula xisaabtanto isla markaana ay banaanka keento kuma jiraan mashaariicdu kuma jirto waxaan ognahay magaalada Beledweyne waxa loo keenay rag dhalinyaro oo aqoon-yahanaha ayaa waxay u dalbeen inay magaalada Beledweyne townka ay dhigaan ama centerka magaalada inay dhigaan interlock waa loo soo dhameeyay waa la keenay cali guudlaawe waa loo keenay saxiix baa la yiri magaaladana waxaan rabnaa inaan interlock dhigno wuxuu yiri caasimadu waa Jowhar waa in la dhigo Jowhar cali guudlaawe asaa ka soo jeeda caasimad asaa ka dhigtay asaga ayaa madaxweyne ah intaasoo yacni awood qaybsigii dhammaan markuu xaggaa mariyey isla markaana dadkii dagaallo lagu furay ay dagaallo ku jiraan ayuu haddana wuxuu u soo dhigtay islaamihii beledweyne yaanyada ku gadayay shilimaadkii ay ugu deeqayeen maamulka gobolka si uu maamulkaasu ugu caawiyo dadka xabadda la hortaagan kooxda khawaarijta sidii loogu caawi lahaa taas ayaa laga yaabaa inay micnaha uu ka wadaa ay tahay in uu joojiyo gebi ahaanba dagaalka looga soo horjeedo kooxda khawaarijta cali guudlaawe ayaanan u ogeyn ama ayna u kala baxsanayn mashruuc lagu soo qaaday magaalo in aanan magaalo kale la dhigi karin dadkan maamulayaan sidaa ayay u fikirayaan waxay u maleeyaan waxa dhan oo ay ku shaqaynayaan in uu yahay hebel jeebkiisa ka bixiyo hebel kale jeebkiisa geli mashruuc haddii magaalo lagu keeno magaceeda isla magaaladii ayay kula xisaabtamayaan dadka keenay wartaa faham